الله الرحمن الرحيم waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa doorashadii iyo campaignkii sida nabadgelyada noogu dhamaaday waxaan u mahadnaqaynaa shacabweynaha Soomaaliland ee u dhabar adeegay hawsha ee si fiican oo nabadgelyo oo degan oo mugle codkooda u dhiibtay waxa kale oo u mahadnaqaynaa taageerayaasha xisbiga wadani ee sida mugale ugu codeeyay isbedelka waxaanu sheegaynaa dadweynaha in axsaabta iyo komishanku ku heshiiyeen inaan natiijada laga hordhicin waxaanu se ka xunnahay in xisbiga kulmiye uu ishambaliyey annagu kama urursanin in dalkan isbedel ku imanayo oo isbedel khayr qaba ku imanayo kama urursanin ummaduna codkeedii way dhiibatay si mugle oo miisaan la ayay ugu codeysay isbedelka natiijada se waxaanu la sugaynaa komishanka dhawaaqiisa waanu ka xunnahay in dadka la hiyikiciyo oo heshiiskii la wada gaaray laga baxo oo xisbi si gaar ah soo hambaleeyo waxa kale oo ka xunnahay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye oo si qaawan oo anshaxa ka baxsan gudoomiyaha iyo gurigiisa uga sheegay waxaanu leenahay waxyaabaha qiimo rida process-kan ku jiray tartan xalaal inuu galay gudoomiyaha xisbiga iyo musharaxu waa madaxweynaha mustaqbalka karaamo iyo wuxuu leeyahay sharaf marka waanu ka xunnahay anigana xaal ka bixinayaan ka rabtiga wahay ee gafka inta la galay taageerayaasha waxaanu sheegaynaa shaki kama qabno anagu guusha ee waxaanu la sugaynaa marka lagu dhawaaqo iimaanu sugaynaa wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaanu dhowraynaa ama aynu wada sugaynaa natiijadii kii wadambaysta ahayd inay ka soo baxdo ama ay ku dhawaaqaan maalmaha soo socda komishanka doorashada Soomaaliland annagoo ixtiraamayna annagu xisbi ahaan guddiga anshaxa iyo komishanka doorashooyinkaba ma jeclin sida kulmiye inaanu dadka aanu u sii sheegno ama waxaan jirin aanu ugu baaqno nidhaahno sida kulmiye iskaga hadaaqayo guulaanu haynaaye guriyada ku sii dhex dabaaldega waa arrin sharciyad u baahan in la mariyo hadalkaa ka soo baxay xisbiga kulmiye waa arrin u baahan in lala tiigsado oo komishanka doorashooyinku ay ka qaataan go'aan rasmiya isla markaana ay ka qaadaan tallaabada ku waajibka ee ku habboon waa la wada ogyahay shacabka reer Soomaaliland inay u codeeyeen isbedel inay u codeeyeen annagoo ixtiraamna laakiin nidaamkii noo dejisan iyo sharcigaba sidii xisbi ahaanba awalba leenugu yaqaanay ilaalinta sharciga iyo ixtiraamkiisa annagoo dhowrayna ma jeclin inaanu ka hor dhacno waxaanu haynaa natiijooyinkii ay soo ururiyeen xubnihii goobjoogayaasha ahaa ee xisbi walba uu dirsaday ee goobaha codbixinta ka dhacaysay goob walba natiijadeedii baanu gacanta ku haynaa mase jeclin inaan annagu gacanteeda ku qaadano sharciyadda oo aan annagu wax isugu dhawaaqno ama aan wax sheegano waxaanu leenahay oo kulmiye ugu baaqaynaa oon u soo jeedinaynaa waa la ogaa intii ololuhu socday qaskii iyo fowdadii aad ka kicinayseen mujtamaca reer Soomaaliland iyo bulshada iyo isku durkii ay ka dhex wadeen ee dadka biseylka gaareen darteed ay idin dhaqaaqi waayeen waa la ogaa tallaabooyinkii foolxumada lahaa ee guriga gudoomiyaha ku soo weerarteen waa la ogaa tallaabadii foolxumada lahayd ee xubnaha xisbiga wadani u sarsareeya ololaha doorashada waday gacanka hadalkii ay u geysateen waa la ogaa weeraradii cadaanka ahaa ee ku soo qaadeen madaxda qaarkood maalintii codka lagu ridayay waxaasoo dhan anagu dulqaadkeedaanu leenahay adkeysigeedaanu leenahay biseylkeedaanu leenahay ma jeclin aan anagu fal celinteeda gacanteeda kaga jawaabno ama gacmahayaga aanu anagu sharciga ku fashino nidaam baynu leenahay dowlad baynu nahay laama amni baa noo jooga iyaganu gaadhsiinayna waxaasoo dhan inay wax ka qabtaan ama tallaabo ka qaadaan ama wax ka yidhaahdaan ugu dambayn waxaan leenahay mujtamaca reer Soomaaliland
inta guushii aynu gaadhnay guud ahaan waanaynu ku hambalyaynaynaa gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani guushii ay gaadheen ee isbedel doonka ahayd iyo dabaylihii isbedel doonka ahaa ee waddanka bari ilaa galbeed ka jiray iyagana waan ku hambalyaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu ilaahay ka baryaynaa isbedelka aynu ku baaqaynay ee aad doorateen inuu ilaahay inooga dhigo mid khayr qaba oo dalkeena iyo dadkaba wax tara oo lagu liibaano inuu ilaahay inooga dhigaa baan ilaahay ka baryaynaa waxaanu leenahay komishiga doorashooyinka arrimaha kulmiya ku dhex jiro ee habeenii maalin uu ama websaytyada iyo social mediaha uu la dhex fadhiyo iminkana uu kuga soo dhiiraday inuu saxaafadda si badheedha ula soo hor fadhiisto inuu guulo iska sheegto aan loogu dhawaaqin waxaanu leenahay arrintaasi waxa weeyaan arrin keeni karta nabadgelyada khalkhal gelin karta isku dhac keeni karta iska horkeen bulshada dhexdeeda ku keeni karta waana arrin nidaamkii quruxda badnaa ee noo soo dhammaaday weeqi karta waan uga digaynaa annagu waan uga digaynaa waanu haynaa natiijooyinkii ciddii guulaysatayna waa la ogyahay laakiin waxaanu sugaynaa sida sharcigu dhigayo komishka doorashooyinka qaranka jawaabtoodaan sugaynaa natiijada iyagaanu ka sugaynaa ma jeclin aanu ka hor dhacno waxaase u digaynaa qolyaha saxaafadda la soo hor fadhiistay ee bulshada reer somalilan hortooda ka sheeganaya qaraxyo iyo guulo aan cidi u sheegin inay gaadheen waa digniin tallaabooyinka haddii ay wax ka qaban weydo komishinku tallaabooyinka komishka doorashooyinka haddii ay wax ka qaban waayaan ka aamusmayna anagu bulshadeeda waxaanu soo bandhigi doonaa goob kasta codadka rasmiga aynu ka helnay waxaan soo bandhigi doonaa gobol kasta codadka rasmiga ah aynu kaga horeyno xisbil xaakimka nala tartamayey waxaanu soo bandhigi doonaa natiijooyinka hordhaca ah ay noo soo gudbiyeen maxaa la idhahdaa xubnihii wakiilada nooga ahaa goobihii ay doorashadu ka dhacaysay marka hore ilaahay waa mahadle doorashadii 13 Noofembar dhacday inoogu dhameeyay guusha jamhuuriyadda Soomaaliland waa guul qaranka u soo hoyatay ilaantii maynaa wada hadalka gudoomiye ololahan waxaan halkan shacabweynaha reer Soomaaliland uga bushaarinayaa inay doorashadaasi guusha doorashada nabadgelyada inoogu dhamaatay ahayd guul qaran intaa ka sokow waxaan jeclaa arrin shalay dhacay oo la igu xidhay Gabiile aan ka hadlo dad badan bay soo weydiiyey sida wax u dhaceen inaan markaa iftiimiyay runtii jeclaa halkan aan ka ambabaxay markii sanaaduuqdu ku soo xerootay Gabiile habeennimadii eedna wakiiladii noogu jiray meesha ayaa cabashooyin badan ka yimaadeen u galbaan sidoo laga soo celiyay habeenkii maalinnimadii ayaan haddana ku noqday abaara 12 subaxnimo anigoo kaarkii ogolaanshaha gelista komishanka haysta ayaan askartii hor joogtay tusaanku yidhi waxaan wakiilka komishanka ee degmada Gabiile u qaabilsan xisbiga wadane marka laga yimaado inaan ahay gudoomiyihii Allah dabeedna wax kale ma oran waa kana qabtay yiraahdeen raanimo lagu sii ballansan bay haayeen sidaas aadu waxna way ugu dhuftay qori dabadii iyo gacan iyo intaba markii dambana waa la qaaday mas'uuliyiin kale meesha joogtaa ibtimaad kamid ahaa xildhibaan Mustafa Sayid kamid ahaa ambassador Cawaale kamid ahaa Daawud kamid ahaa mas'uuliyiintii deegaanka ka soo jeeday iyagana ninba wax ku dhacay waa lagu dhuftay layqaad 7 daqiiqo meeshii ku xidhnaa saldhigana waxaan ugu tagay dad kol wadani taageersanoo kala beed degmada la ilaalinayo laga soo xidhay maalintii codeynta laftooda la soo qabtay gudoomiye degmada kala beed ku jiro 7 daqiiqo xidhnaa waxaan u sheegay warnimayow wakiilkii xisbiga u fadhiyay waan ahaa degmada ee tirinta uga qayb galay taanani halkan ku xidhanahay tirintiina socoto sidee xalaal u noqonaysa tirintaas iyo natiijadaas haddana way soo qaadeen meeshii bay dhex keeneen intaan meesha joognay ninka guutaale la yiraahdo taliyaha qaybtaada markii horena gacantii geystay wuxuu yiri xaal ma ku siinaya waxaan ku yiri nin xiran xaal ma qaatay markan xorriyadeeda helan baan ma ka qaadanay ama kugu soo celi arrinkaas soo dhacay kayo kaliya ma ahayn gudoomiyihii gobolka maroodi jeex cabdikildi weydikii waasna ilaa wax ku dhufteen Faadimo Saciid gacan bay ka jaban tahay Ismaaciil Yara iyo Maxamed Bixiyo waa la weerar maalintii codeynta waxa soo dhanay waxay muujinayaan guushuna dhaqan bay leedahay guul daradana dhaqan bay leedahay annaga waxa lagu waajibay inaanu dhaqankaanu leenahay qaadano dhaqanka guusha inaanu qaadano inaanu dulqaadkeeda yeelano isbedelka rajada shacabka ee soo muuqda
inaanaan ka hordhicin ku dhawaaqista natiijada doorashada waxa xeerku u jideeyay komishanka doorashooyinka ayaa leh inay ku dhawaaqaan xisbiga talada haya waxaan uga digayaa inuu been uu ku walaaleeyo dadkiisa been u sheego hadhow kantarooli kari maayo xaqiiqadu markay timaado ay ku adkaan doontaa inuu la tacaalo dhibaatooyinka ka dhalanaya waxaan jecelnahay in la sugo guusha cidda xaqa oo la sheegaysa waa komishanka qaranka doorashooyinka taageerayaasha waddanina waxaan ugu baaqayaa aniga shakhsiyan wixii igu dhacay wixii mas-uuliyiinta kale ku dhacayba iyo ka weynba diyaar baynu ahayn oo isbeddelku wuxuu u baahan yahay adkaysigiisa dhiiranaantiisa ayuu u baahan yahay aad baanu u niyad wanaagsannahay waxaan idiin sheegay inaad farxad iyo reerayn guryihiina ku joogtaan inaynu innagu sidii caadadaynoo ahayd sharciga iyo kala dambeynta ilaalino oo aynu dhowrno ilaa inta natiijada uu komishanka ku dhawaaqayo xisbiga talada hayana dee waa dowladdii inuu mas-uuliyad muujiyo oo runta uu ku dhaqo taageerayaashiisa ayaan runtii jeclaan lahaa waanu ognahay xaaladda dhabtii siday tahay iyo cidda guulaysatay komishanka ka hor dhici maayo aad baanu u niyadsannahay intaa wixii ka badan waxaan uga tegayaa afhayeenkii xisbiga halkan fadhiya keliya waxaan u sheegi lahaa qadiyaddii gabiley dacwad baanu qornay wixii meesha ka dhacay ee foosha xumaa aniga waa tii meesha layga dhex qabtay dee arrinkaasi igu dhacay wakiiladay noo jooga dhibaatooyin kala ku dhacay maalintii la codeynayay min wajaale ilaa gabiley dhibaatooyinkaasa ka jira maan filayn in deegaanka wajaale iyo gabiley ilaa 26 juun ilaa suuqa gobonimo in xaaladda ay dadku ku codeynayaan tii shalay nasiib darro ahayd inay noqoto maan filayn waxaa runtii ka xasiloonay taleex xiingalool iyo deegaanada bariga waxaa samaynayna waxa weeye cidda dhaqankaa lehna waa cidda guuldaraysatay aad iyo aad baan idiin salaamayaa wixii nagu dhacay komishankaanu dacwaddeydii u gudbisanay iyagaanu dhowraynaa inay ka soo jawaabaan arrimaha aadka u fooshuxunan tilmaami lahaa inay gibli ka dhaceen waxaa ka mid ahaa in barasaab ku-xigeenka gobolka cali casan ninka la ydhaa uu fadhiistay oo wakiilka ahaa xisbiga kulmiye wakiilka u fadhiyaa komishanka gibli dhexdiisa habeenkii doorashada bilaabantay waanu gudbinay komishanka doorashooyinka qarankana jawaab degdega iyo tallaabo ku habboon ayaanu ka sugaynaa waxaasoo dhanna waxaanu ku ilaaweynaa waxaanu ognahay inay soo socdaan